munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran isla markaana ay ku qalin jabinayeen suxufiyiin Soomaaliyeed ka qalin jabisay Machadka Dallas International isla markaana ka qalin jabiyay kulliyadda saxaafadda ayaa waxaa xaflad ballaaran lagu dhigay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo munaasabadaas ay ka soo qayb galeen macallimiin iyo sidoo kale qowro saxaafadeed kuwaas oo ku sugnaa madasha ay ka dhacaysay munaasabadani howlka munaasabada ay ka soconaysa ayaa waxaa aad u soo buuxiyay marti kala duwan kuwaas oo ku faraxsanaa ardaydan maanta qaadanaysa shahaadada xilli suxufiyiinta Soomaaliyeed ay haysatay dhibaatooyin fara badan munaasabadan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulaha guud ee Machadka Dallas Maxamed Haadi Olaad isla markaana faahfaahin ka bixiyay ardayda maanta shahaadada qaadanayso isagoona sheegay inay tahay dufcadii labaad ee muddo 2 sano gudahooda intuu uu furnay iskuulkani ka qalin jabisa ardaydan waxay ku dadaaleen inay sameeyaan kooska ay baranayeen inay tartanno badan ku qaataan dadaalo badan sameeyaan kooskaasna gabagabeeyaan waana arday kaalin muhiim ah ka sameysay inta ay baranayeen maamul iyo macallimiinna aad ay ugu qanceen magacoodana la yiraahdo Honesty Group munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay Lucas Lazalino isla markaana ah khabiir saxaafadeed kaas oo ku dhiirigeliyay ardaydan shahaadada qaadanayso in aqoontooda hore u isii wadaan isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo munaasabad caynkan oo kale ah. The Honest Group will be awarded a certificate and the Journalist Group will be awarded a diploma. So a clap. And I wish them all the best for their future, for their life, for their career, and congratulations again. munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay Maxamed Gaarane Aadan oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed isla markaana inta badan u dooda xuquuqda suxufiyiinta ardayda maraan ugu tagay college-ka ayagoo qaadanaya training runtii wax arday la mid ah ma arkin sidii ahaayeen ay maartay sidii wax u diyaarinayeen sidii u furfurnaayeen qaar kamid ah ardaydii halkaasi shahaadada la guddoonsiiyay oo telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV wax ka weydiiyay xilligan siday ugu dhiiradeen inay bartaan saxaafadda maadaama dalka Soomaaliya ay ka jirtay dhibaatooyin fara badan isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay suxufiyiin Soomaaliyeed ay naftooda ku waayeen iyagoo ku guda jira hawshooda waxa igu dhiirigeliyay inaan noqdo saxafi inaan u doodo wadankayga iyo saxafiyiinteeda anaka waxaan ugu dhiirigeliyay dadka walaalna saxafiyiinta oo Muqdisho lagu laayna anaka saa awgeedan saxafinimada aan u bilaawno inaan barano xilli bilihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku geeriyoodeen in ka badan 6 suxufi ayaa haddana waxaad arkaysaa suxufiyiin Soomaaliyeed kuwaas oo ah jiilka soo kacay isla markaana doonaya inay halkaasi ka sii wadaan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay u gudbiyaan xaqaa'iqda dhabta ah ee ka jirta gayiga Soomaaliya Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Nairobi Kenya